hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa soo dhaweynaysa natiijada daawada dhoweysay taasi oo dili karta ama hoos u dhigi karta dhimashada dadka qaba caabuqa Covid-19 gaar ahaan kuwa xaaladda culus ku jira. agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka WHO ayaa guul weyn oo la gaaray ku tilmaamay natiijada daawada isagoo u mahad celinaya boqortooyada dawladda Ingiriiska iyo khubarada soo bandhigay natiijadan ee jaamacadda Oxford iyo sidoo kale bukaanadii lagu tijaabiyay daawadaasi. tanina waa daawadii ugu horeysay ee muujinaysa in lagu dhimo geerida caabuqa Covid-19 ee u baahan oxygen ama hawo. waa waraad loogu farxo. waxaan u hambalyeynaya boqortooyada midowga UK ee jaamacadda Oxford, isbitaalada iyo sidoo kale bukaanadii lagu tijaabiyay ka qayb qaatay horumarka sayniska ee lagu badbaadinayo nafo badan, ayuu yiri agaasimaha guud hay'adda caafimaadka WHO. ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa soo dhaweynaya guusha natiijada daawada isagoo u amaanay horumarka ay sameeyeen UK ee ka qayb qaadanaysa soo bandhigida natiijada daawada dhoweysay. wasiirka caafimaadka UK ayaa isaguna sheegay in horumarkan ay soo bandhigeen oo khubarada u muujinaya UK ay ku guuleysteen la dagaalanka caabuqa Covid-19. Xamse Dabare, Star TV.